habeenkii guryaha maanta oo tirtiraya oo siigada hata taa way ka reeseen sooma guriga salaada markay ugu soo kushito ilaa ay duqabeen ku kama muusi ugu jiri asasmo oo madatu ay ma iyo boda iyo tuk siigo maamada maamada gaarsiday maamada oo yiraahdo nadiifay jismacid la ku ducay maama uu ducay wadi laamiga amasha kad guriga maarkas ah toonjar aan tirtiraa karas hadana maanta ana ilaa ka balaqaad xarabna ay inaan markii ku surno oo sidii maalin iyo habeen kala garan wax si magaalada ta insha Allah ana balaqaad ana waxaan balaqaadana waan qaban insha Allah laakiin waxa karayno maxana ma karay laakiin inta banaan ma leeys ana adduun jannada jekeen jannadana lama bahayo midda labaad lacag iskuul idin ku dhisay ani 2 sano 3 sano hay hada laakiin dawladda iyo chiefka iyo education waxay leeyihiin secondary laga dhiso sambul dhulki sambul baa la gooyay insha Allah sanadkan dhamaashadiisa iskuulka wala bilaab sifa caruurta xaafadan ay u aadin meel fog marka ka soo tashada ma maxaan ka dhignaa secondary oo wiilasha mise gabdhaha taas idinka rabaan ka tashatiin na ka tashatiin waa shay muhiim ah meelaan hadda ugu sheegayna ninka injineerkan soo dirayna insha Allah weekend sida aan yeelno tansuuq xoolaha pamsel oo sifa ma hooyooyinka caruurta gaariga u dhicin pamsel baan dhufay ma liira xaja nimana laamay u soo leeyahay tugtug ayaka way ku dardarayeen tugtug hada laamay hay'adda magaalada kama soo qateen waa tugtug tambuux kuma soconaa laakiin tugtug wuxuu ku fiican yahay maamada iyo labadeeda cunug buu si fiican u qaadi hadda maanta waan ku soo marwartay wartabtii walaayarka hooyooyinkii ilmaha wada tugtug si gaari ma dusaa u dhibo maamadii cunug ugu bordhay marka taas insha Allah injineerkan soo dirayna laamiga fiican iyo yuro gawaarida qaboojismaad oo duqeyda iyo caruurtii ay ku dhicin yaan ka shaqeynayna waxa kaloo lii sheegay inay niman liira traffic meeshan ay fadhiyaan dadka ay dhibeen hada gaariyada numberkooda waa lidii na waqti media paka musamey gaariga GK B92J GK B804H ana hada ninka bis weyn oo weyn robox ku socda boqol shil ku shil ma roosana marka kanjo waxa uu sheegay deputy governor soo inta mooman ani waxa uu sheegay simba milkiina wa kanjo iskale maaya mahadi arif kula masalan kanjo waxa iskale abdi dakhale waxa idin ku soo diray abdi dakhale wax iska reeba iyo booskiisa ani uhuru waxa ka adag Iblis iyo FB iyo jesh iyo traffic shaqada kala bixino ana traffic idra iyo CID iyo police iyo jesh traffic maanta meel baa soo noqon wala ma qadonti hadda waxa la warish after caaw hadda iraaca ila duuba laakiin kanjo raga askare hadda yaa ridil aadan bare askarta anadu yiraan dagaasay hadda waa baxsanaayeen bariya waa baxsanaayeen ninki kholof la galay waxba qaban waayo wuxuu dhii salaadii ilaa maghrib aadan bare ma ana culimada ku xiranayo muslimiinta iyo masaakiinta lima qabanayo waqti iska dhumin ku dhaan marka saytu biyana ana kuma shaqo abd la qana ku shaqo biya aliyo uulu waxaan ku shaqona laami iyo nal iyo school iyo waxas marka buura masalani ninkaas abd la qana loo gool u dhigta aadan bara yani kan bengareeyay marka umada biyo siiya dhaha ku dhahta waliba lama baryaa xoog inay biyo umada ku siiyaan wali ganaana mara meesha mari gaarisa oomo waxa ceebwa sheekadana ka bixiye hebel qows inki dhahay wasiira laga dhigay maxamed يلعب ممكن لو وزير الغالي وحول أفرطه بروع الماء كل شمعة صار هذا عندك الوانقة
أنا كملكنا لدورته مشار الماء قبل وهنا لكن وحال الربا ومدة إلا حسدين ومدة عدك حتى عربك على ما حسدان إني حتى مركو ترافيك أما سيدي دواي وحرة ومدة إنا وحرش حجابك مقرنا حرشان الربا ومدة وحكر هاو قبلين عدك هذا واي قبلي إلى مغرب عدك هذا وهذا صومالي وهذا مسلمين وهذا ربك وهذا سياسي اللي قوم جايين إن عليه إسلام ترى مالك في الستين ما هي ما هذا الخمدور حاسك الخمدور نكتب من يقول مين واحد لقى والله أمانه والله عيني نكاسيته سياسي في سوق قليل إدي سافر يستو إسلام تزي عروج سافر نقول هذا المرة لكن هذا المر نخوت ملح هذا المر كرسي دزوينا هذا مدحوينا نخو والوعي والوعذابي ربطة الوسوجي عدالة الإيماني أذيك أياد البطي إنا دزوينا ملح نخوت سما آخرنا علماء ويفريانا نكمل ملح ده dadka waa laga mid xagga la fariisin madaxa waxa la dhigay nimayo inka waqtigiin tii mas'uuliyada la weydiin